الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توحى فرحة إنه عدينا هاي maamulka sare ee shirkadda Orange inaan joogno magaaladan Garowe gool maamul goboleedkan Puntland runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Allah mahadcelintiisa kadib maamulka shirkadda Orange ee Puntland State oo xaqiiqatan si qurux badan ugu soo dhaweeyay magaaladan waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta anigoo kaga faa'iideysanayo fursadda oo dabarani media uu siiyay Orange waxa ay tahay iyo waxa ay qabato iyo wixii bulshada u qabatay inta inaan ku soo koobo fursadan sidoo kale meesha aan ka hadlayaan maanta aan ka soo jeedinayo warbixintan waa xafiiska shirkadda Orange ee magaalada Garowe shirkadda Orange waxa la aasaasay 2011 waxay soo shaqeynaysay shirkadda muddo badan ayay soo shaqeynaysay shirkaddu waxa ay qabato waxa kamid ah barnaamijyada service-ka ama adeega waxa loo yaqaan oo wadankeena maanta aad u yar in oo dad ay ka shaqeeyaan laakiin shirkadda way u bareertay barnaamijkaas inay ka shaqeyso shirkadda waxyaalaha service-ka ay ka shaqeyso marka waxa kamid ah xagga waxbarashada education service-ka oo education service-ka waxaan ugu shaqeynaa fursado waxbarasho waxaan ugu keenaa ardayda Soomaaliyeed dalka dibadiisa gaar ahaan jaamacadaha midowga Yurub oo qaab waxaan ugu soo dhameynaa scholarship 75 scholarship 50 scholarship 25 scholarship mar waliba waxay ku xiran tahay jaamacadaha aan ka keenayno iyo duruufaha markaas ku hareereysan sidoo kale shirkadda waxyaalaha aadka xoog u saartay marka waxbarashada la joogo waxa kamid ah jaamacadaha dawliga oo dalkaasi Turkiga aan rajeynayna sanadkan aad u aleedmo tiro badan oo arday inay ka faa'iideysan doonto waxyaalahan u joognay kamid tahay maalmahan Puntland inaan ardadii iyo maamuladii iskuulada intaba inaan u sharaxno fursadda shirkadda Orange ee keentay marka insha Allah taala dhan waxaan rajeynaynaa bishan oo hadda aan ku jirno June 30keeda ilaa July 10keeda imtixaan loo yaqaan yoos inuu ka dhici doono magaaladan Garowe oo ay ka soo qayb gali doonaan dhammaan ardada ku nool maamul goboleedkan Puntland oo gaalkacyo iyo boosaaso iyo qarda iyo dhammaan meeshan ay ku gali doonaan marka imtixaankaas waxaan rajeynayaa ardada Puntland inay ka faa'iideysan doonaan adwaaleedmo oo sida ugu quruxda badan ay ugu faa'iideysan doonaan maadaama xafiiskii loo keenay oo xafiisadii aan gaarsinay ilaa gaalkacyo ilaa boosaaso xafiis oo shirkadda ay ka furtay sidoo kale shirkadda waxa ay ka shaqeyso waxa kamid ah adeega caafimaadka oo heshiis waxaan kula jirnaa isbitaal caalami oo medicine hospital lagu magacaabo oo kamid isbitaalada ugu waaweyn oo ku yaal Istanbul oo u shaqeey qaab international oo aan rajeynayna adwaaleedmo bukaano badan aan u dirnay oo just hadan diyaar aan u nahay reer Puntland qof waliba xanuunsan oo danaynayo inuu isku soo daaweeyo Turkiga oo kala caafimaad uu aado shirkaddu waxay diyaar u tahay inay u fududeyso oo processkaas from A to Z ee ka caawiso soo isbitaalkii oo u gaaro oo isku soo daaweeyo qiimo macquul oo isku soo daaweeyo adwaaleedmo insha Allah shirkaddu waxyaalaha kale ee ka shaqeyso waxa kamid ah barnaamijka iibsashada guryaha Turkiga sidoo kale familiyada rabo in Turkiga مثلا tagaan oo guri ay ka iibsadaan shirkaddu waxay diyaar u tahay familiyadaas inay caawiso ay ku caawiso inay meeshaas ay gaaraan oo guryahaasi fudud ay ku iibsadaan oo qiimo macquul aan u iibino oo just meesha markay tagaan aan ku caawino sida iqaamadii iyo ilmahooda waxbarashada intaba ay ku heli lahaayeen waxay kamid tahay waxqabadka shirkadda Orange waxyaalaha kale ay qabato waxa kamid ah trainingka am tababarada aan siinaa ardada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada intaba wal tababaradaas laba qaab aan ku bixinaa qaabna waa intana wax aan gudaha ku bixino tababar seminar iyo training intaba qaarna waxaan u isticmaalnaa dibaddan u isticmaalnaa sida ardada medicine oo kala baratay oo internship iyo fellowship oo kale oo dalka dibadiisa aan ugu dirno sidoo kale ardada engineering ka bartay oo kale ayagan sidoo kale waan u dirnaa oo wadamada waxaan u dirnaa Turkiga iyo Qubrus iyo sidoo kale Uganda iyo Egypt ama Masar iyo Sierra Leone sidoo kale waxaan ku soo kordhinay isla sanadkan shirkadda Orange adeegyada oo xagga training waxa lagu soo kordhiyay college oo lagu baran doono farsamada gacanta oo dalkaasi Turkiga aan rajeynayna adwaaleed ardada Soomaaliyeed inta daneynaysa inta xiiseyso farsamada gacanta oo kale inay bartaan oo qaybaha wixii farsamada la xiriiro in oo college-kaas uu ka saacidi doono farsamadaas inay soo bartaan oo dibloman ay ka soo qaataan kadibna xirfadiis qofku uu ka shaqeysto adwaaleedmo dadaal dheer oo shirkadda ay sameysay kamid tahay si mar waliba loo
daboolo baahida ardada Soomaaliyeed laana ardada waxay iskugu jiraan kuwa daneynayo jaamacad ilaa heer masareeb degree inay gaarsiiyaan kuwan wax weeyaan waxay ka doorbidayaan farsamada maanta wadanku wuxuu baahi weyn u qabaa farsamo oo baahi weyn u qabaa in la helo dad xirfad yaqaan oo theory kali aan aqoon xirfad yaqaan oo wax walba ka shaqeyn karo oo electrigi iyo waxyaalaha kale oo ku saabsan xirfadaha oo baahiyahooda maanta aan dareemeyn wadanka inay ka jiraan intaba college kaas dhawaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu yimaado oo maamul madax ka socodka college kaas oo bandhig badan ay ku soo sameeyaan wadanka oo rajaynayna magaalada Garowe in lagu qaban doono bandhigaasi oo ay ku soo bandhigi doonaan wax qabadkooda iyo bulshada Soomaaliyeed waxay ka caawin doonaan marka insha Allah ta'ala kambamiga Orange arimaas uu ka shaqeeyaa kambamiga Orange waa kambani international oo kule xafiisyo dalkeena Soomaaliya ilaa 18 xafiis ayuu ku leeyahay Soomaaliya sidoo kale East Africa xafiisyo ku leeyahay sida Kenya iyo Djibouti iyo Uganda iyo Sudan iyo Kenya sidoo kale shirkadu waxay xafiis ku leedahay Turkiga iyo Qubrus qaybta Greega iyo bariga Yurub adwaaleedmo marka shirkada mar waliba waxay u taagan tahay bulshada Soomaaliyeed inay caawiso oo baahiyahooda ka caawiso adwaaleedmo ayna ka jawaabto baahiyaha suuqa ka jira adwaaleedmo insha Allah marka mar waliba bulshada Soomaaliyeed meel waliba ay joogan ayadoo aan u fiirineynin iyo waxa aan u fiirineynin shirkada waxaan gaarsiin xafiisyadeeda meel waliba bulshada si ugu faa'iideystaan qaybaheeda